adiga diinta soo ma raacsanid diinta وراعسنا waxay sheegaysaa diinta waxay sheegayso gabar in la taabto gudaheeda ama hilib laga jarjaro ama wax lagu sameeyo waa khalad diinta islaamka ma dhigayso walaa ماما تهاي بقول مامو أيي أبوي أب أصله هذا دكتور waa ku soo dhacaysa gabar la guday waan arki jirtay diinta bariga noo soo أنا baxday بالجود maxay dadkeedu ugu soo dhacay أنا بالجود kor fadhiye dhageysto أنا ku hor fadhiyo oo la guday laakiin waxa waaye khaladay ahayd wax lagu qaldoonsan yahay soo ma jirto waxa waaye waxaanay to fircooniyo waay may fahantay waa fircoon dadka wuxuu ku baanish gareyn jiray may fahantay hadda awoowayaasheen iyo 100,000 oo sano dadkeeni way qaldanaayeen baadilay ahaayeen anaga saxan anaga saxan sax gabdhaha guditaankooda markay noqoto sax lama gudi kara gabar من أرك حلية هاي أنا محي قرابنimada faraha badan oo cunug saqiira iyo naag weyn iyo dug in loo taagnaado garoob iyo naag kasta in ilmo kaligeed koris oo mas'uuliyadda nimanka dhan iska wareejiyaan oo mas'uuliyadda naagii lagu wareejiyo oo naagta cunug buq haday siiso faraha looga qaado ee la dhaho waxaan iga galay malashaatigeyga iyo cad taas diin miya iidan oo cunugii mas'uuliyadda ilaahay saaro oo banaanka maro no diin maahan ilmaha waxaa xilkiisa uu saaran yahay aabbaha inuu koriyo ilmihiisa quraanka uu geeyo baro sharciga diinta islaamka aakhiro cunugaas wixii ka halaaba yaa asaga loo haystaa edabta iyo akhlaaqda inuu baro oo cunugiisa iskool geeyo dugsi geeyo diinta islaamka baro oo cunugiisa koriyo asaga ayaa u xil saaran cunugaas haddii quraan la bari waayo habarta looma haysto odagaa loo haystaa maanta mujtamac Soomaali oo dhaqmooya ilmaha yaa koriyo naag ma koriso masnina koriyo wallahi ma wadanka oo dadkan Yurub soo aaday oo nooc kale oo qof walba dal iyo dibad okay idageyso maqal nimanka Soomaaliyeed gabdhaha waa lugooyaan waa guursadaan ilmay ka dhalaan waa uga tagaan xaqooda ma siiyaan meherkooda ma siiyaan iskama xil saaraan waxaas dhan waa la og yahay waxaa jirto maamo kala haysata 5 cunug oo kala aabe waxaa jiro aabba kala haysto 10 ciyaal oo kala hooyo oo totally taasna waa qalad waay waa ilmaha ugu horeeya inaa xaqiisa gudid waa bal kan labaad iyo kan saddexaad ku dambeeyaan lana korsatid hooyada haddaa kala tagtaana aa kaga warqabtid biilkeeda siisid cunugaaga caafimaadkiisa ka warqabtid dugsigiisa quraanka aa geysatid 14 boqolka aa baratid because adigoo oo aabba ayaa mas'uuliyadda ku saaran tahay dal iyo dibadda hooyo baabaan hooyooyinka Soomaali waa arta budatan gadaysa aanan gadaysa wajigeeda waxaan kuwa dibadda xaquuq qayb qaataan kuwa wadanka ka daran kuwa dibadda xaquuq waxa fiya gaal ku diin eena xaq siiye laakiin kuwa dalka wajigiisa madoobaad wajiga alahaasa madoobaatay sida irtaq u buriyeysay ay banaan ku taagneed oo dabeesha iyo xanfarta indhaha ku buuriyaan waxa arkaysaa qof oo in badan loo door lagu munoy aan ku dhoo taas waa ku qaldantaa waa ku saxantahay taas aniga seeber wax mujtamaca u baahan yahay baa ka hadlaa midaada kale tan maama faranka gaal dilaal iyo gaftiisa fiye maxay naagaha bis in dhinac loo riixo oo nimanka garaado loo suro oo taash loo saaro oo boqorin laga dhigo oo naagahan ay buko oo baktiga laga dhigo diinta waa soo afjarraba waa soo galaa waxyar maqal muno bilaadanka isku mid maaha shantaada farood see u simnayn may fahanti sax dad ilmahooda korsada xaqooda iska guda dal hadday joogaan dibad hadday joogaan waa jiraan dad mataqaanaa khayr masuul oo ilmahooda gafay oo naftooda gafay oo waaridkood gafayna waa jiraan may fahanti sax gaaladay ku jiraan muslimkay ku jiraan cid walbay ku jiraan cadaankay ku jiraan madowgay ku jiraan may fahanti waxyaalo badan ayaa jiro adduunka waxaa ka dhaco dad ilmahooda dila kufsada gabadhu asagu dhalay ama wiilku dhalay
adduunka waxyaalo badanaa ka dhaca may fahanti waxyaalaha badan oo ka dhaca dee annagana adduunkaan joognaa aakhiro ma joogno may fahanti adduunkaan joognaa laakiin anaga taana waxa waaye nin Soomaali shaatigiisa u cad banaanka oo soo maraa naagta iyadoo dhalaysa hadday dhimato iyo cunug haddii dab oo lagu rido oo gamaaro isku mid ah waayo diyadiisa waxaa ka jiro oo maya muna waa kaa diiday nin kasta oo Soomaali maahan waa qayb kamida nin gafay waajibaadkiisi xilkii saarnaa waa buuxa laakiin nin kasta maahan ogow nin kasta oo Soomaali xeebtaas malahan waa u badan yahay maam farag waxba hada difaacin waa u badan yahay Soomaali kuwa badan oo ilmahooda korsadana waa jiraan naagahoodana si fiican u dhaqda waa jiraan in kasta oo Soomaaliya inuu qayr mas'uul yahay maahan dadku waa isku dhex jiraan muno ninna waa fiican yahay ninna waa xun yahay boqolkiiba boqol ma waxay dheheen nin Soomaali waa xun yahay maya kaama yeelay waa jiraa boqolkiiba boqol nin xun oo aan waajibaadkiisa gudan nin fiican oo waajibaadkiisa gutana waa jiraan waxa ummadaha adduunka qabaanaan la qabnaa wax maanta kow iyo labo fiiri wax kow iyo labo iyo saddex aniga dhagayso aniga iyo adiga ayaa hadda aragnay waxaan labadeena inaan qaldannahay aaminsanahay sababtoo waxa waaye boqolaal sano wax soo jiray wax maanta bilowday maahan may fahanti internetkan freega iyo waxaan ayaa hadda freedom iskaga hadlownaa maahan boqolaal sano waxaan soo jireen nin qayr mas'uul ah iyo nin mas'uul ah adduunka meel kastayna ka dhacdaa may fahanti ha u malaynin marka maanta kaliya inay waxaan dhaceen ha u malaynin weligooday soo jireen adoon dhalanay soo jireen habartaayoon dhalanay soo jireen America ka soo jirtay Australia ka jirtaa adduunko dhan ay ka jirtaa annagana adduunkan joognaa aakhira ma joogno meel kasta laga helaa nin qayr mas'uul ah meel kasta laga helaa nin mas'uuliyadiisa qaata oo ilmihiisa korsada oo wax soo barta ma waxa ay leedahay ilmaha Soomaaliyeed oo dhan single mother soo kumisay wax soo barteen ma ay leedahay waa maya dad mas'uuliyadooda qaatay ilmahooda soo korsaday wax soo bartay waa jiraan dad aan mas'uuliyadooda qaadan ilmahooda maaragtay soo silic diliyay naagahooda soo silic diliyayna buux waa adduunka meel kasta laga helaa wax marka Soomaalida yaysan ka dhigin wax maanta soo baxay oo cusub ma ahan waxaan waa soo jiri jireen horay u soo jiri jireen adduunka oo dhan ay ka jiraan ajab iyo carab ay ku dhacdaa muslim iyo gaal ay ku dhacdaa meel kasta ay ka jirtaa may fahanti wax maanta kow la soo baran laakiin annaga ayaa internetka iyo mataqaanaa TikTok iyo Facebook iyo WhatsApp iyo waxaan annaga ku cusub annaga ummadda ka dambayna may fahamtay laakiin weligooday waxaan soo jireen gaaladu waxay dhahaan ninka naagtiisa dilay ama magaciisi ama daga waxayba u samaystaan website-yo iyo taleefano gooniyo domestic violence ilmaha child protection ay qabaan wax kastay qabaan may fahamtay annaga ayaa dadka ka dambayna laakiin waxaan annaga ayaa too late anaka ma qaribna hadda maya annaga macnaha ma aanan qarin laakiin annaga hadeertaan aan ka hadlownaa laakiin waxaan waa boqolaal sano wax soo jiray waa wax maanta soo bilowday maahan boqolaal sano wax soo jiray waa meel kastana adduunka ka dhaco waa alxamdulillaah meel kastana wax ka dhaco waaye may fahanti game ala dheeli rabaa aadan game oo dheeli rabaa aadan